السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي waxaad kusoo dhawaataan shabakada blogspot.com casharada tutorialka aad ku xisaabadnaa shabakada in soo jeedi jirtay cashka maanta aad ku xisaaban saateeta ka dawda ku saarasteen wuxuu ku saabsan yahay sidee loo xaliyaa cilada ah markii aad ku rufato folder in uu furo new window. For example markaan ku rufato power director halkaas ugu qoranta photo director inuu window cusub loo window oo kala madax banaan inuu sameeyo windowgii hore waa kana windowgii labaadna waa kana marka window cusub ayuu furayaa meel walba aad ku dhufato window cusub ayuu soo furayaa marka sida loo xaliyaa dhibaatadaas marka inaad xasan marka doonayso waxa taabanaysa daawad halkaas ku qorantay view marka taad waxa taabanaysa halkaas ku qorantay daawadayaal option okay option flairta hoose ayaa taabanaysa daawadayaal si tan ay ku soo bixi doonto waxa taabanaysa change folder and search option halkaas waxa ka artaa browser folder open each folder in some window minaha folder kasta waxaad ku furtaa windowgii ayaad ku furaysaa macnaha daaqadii aad ku furaysaa midka labaad hadda inoo saaran waxa way open each folder kasta waxay ugu furtaa in own window daaqad cusub mid kasta daaqad u qaas inuu ku furto marka waa problem aad u weyn marka waxa taabanaysaa open each folder in some window inuu hal window inoo furo apply ay leedahay daawade okay ay leedahay haatan marka ku dhufto power director isla daaqadii ayuu noogu furay marka ciladii saas ayaan u xalina daawade. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilowina cashka in soo siinay anigoo Cabdi Daahir kala socoteen shabakada groups.blogspot.com. ilowina inaad janaalka subscribe